الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ما أنت هاي تاريخ تهاي شنية لباتن كبيش اللبات لبات كونية صدحية لباتن وحن هالكن كجهاد ليا تقال ساكا كبلا مي لاس عنود تقال كاسوس دي نوجين أما ميدياها محي هذا هو الشيء أي شيء إنه ويرد دونين ciidanka ka dagaalamaya laascanood ee isugu jira sidaan horeba u sheegnay maleeshiyada reer laascanood oo ay al-shabaab dibadda ka riixayso inay weerari doonaan qaybta toddobaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu taliyaha ka yahay sareeye guuto Mahad Cambaashi balanta ay hore u qaadeen oo ay rumeeyeen waxa ay sameeyeen saaka weerar bay ku soo qaadeen qaybta toddobaad weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka qaranku isagoo resistant u leh awood u leh inuu isdifaaco wuu iska difaacay si wanaagsan baan uu iska difaacay jabka inay jabaan oo ciidanka qaranka intay soo weeraray ay jabaana wax caado u ahaa ay horeba u sameyn jireen weey ciidanka qaranku inuu isdifaaco awood buu leeyahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marna weerar ma qaadin cidna muu doonanin waxa uu ku joogay xabad joojintii lagu amray ee dawladdu ku amartay in la sameeyo doona xabad joojinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku joogay iyaga jabiyay weerar bay soo qaadeen saaka weerarka ay soo qaadeen way ku jabeen ciidanka qarankuna uu isdifaacaya mar walba dagaalka waxaan u aragnaa saan horeba u sheegnay inay siyaasado kale dawladda ka riixayaan oo al-shabaab dawladda ka riixayso saan horeba u sheegnay Puntland kama madna ciidankeedii baa jooga ka tirsanaa Puntland oo la wada garanayo oo haddii cadayn loo baahdo aanu hayna cadayntiisii oo maxay kamid ah dagaalka oo ku jira dagaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuu isxakameynaya mar walba wuxuu ku sugan yahay amarkii ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahayd xabad joojin in la sameeyo arintana wada hadal lagu dhameeyo hase yeeshee ilaa hadda uma qurqursamin ciidanka dagaalamaya ee maleeshiyada iyo al-shabaab isugu jira ee ay dabada ka riixayso ama daaha dabadiisa u fadhida al-shabaab ama ay si toosaba dagaalka ugu jirto ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland awood buu leeyahay inuu isdifaaco waanu isdifaacayaa horena wuu isu difaaci jiray maantana wuxuu sameeyay maxay ahayd wuu isdifaacay oo magaalada intii badneed ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta gacanta ku haya